maalin maalmaha ka mid ah ayaa Cabdullaahi ibn Mas'uud waxa uu arkay laba nin oo xaggiisa u soo socoto ayagoo waliba nadaalan oo ooman ayayna u imaadeen afkoodan uu jeexan yahay markii ay salaamin ayna waxa ay ku dhaheen wiilow nooga soo lis arigaaga wax aan oonkeena ku baabi'ino Cabdullaahina waxa uu ku yiri ma sameyn kari midaas maxaa yeelay arigan aniga malihi waa leeygu amaanaystayne ayakana waa ay ku qanceen jawaabtiisa intaas kadibna midkood ayaa waxa uu ku dhahay Cabdullaahi waxa ay tilmaamtaa waxar aan wali loo orgoonin asagana waxa uu u tilmaamay mid yariis ah oo agtiisa joogtay ninkiina waxa uu u tagay waxartii waxa uu bilaabay inuu candhadeeda gacantiisa ku salaaxo asagoo alla xusaayo wiilkiina waa uu yaabay asagoo naftiisa la hadlayo wax uu dhahay goormee waxar yar oo aanan dhalin caana yeelanaysay laakiin hal mar candhadii waxartii yareed waa ay weynaatay waxaana ka soo daateen caana fara badan ninkii kale ee la socday ayaan isla markii waxa uu la soo cararay dhagax godan caanaha ayna ka buuxsadeen waa ayna cabeen anigana qodhayda ayna iga siiyeen intii soo hartay walibana anigoo aamin ilaa waxa ay indhahayga arkayaan markii aniga caanaha ka dhargay ayaana ninkii wanaagsanaa waxa uu ku dhahay waxartii isdhim ma aysan ka soo wareeganin wax yar ilaa naaskii waxa uu ku laabtay meeshiisii hore intaas kadibna anigana waxaan bilaabay ninkii wanaagsanaa inaan ku dhaho ibar waxa aad dhahaysay waxa uuna igu yiri adiga waxa tahay wiil wax la baray tanina waxay ahaydna bilowgii qisadii islaamnimadii Cabdullaahi ibn Mas'uud ninkii wanaagsanaa uu arkayna waxa uu ahay rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo saaxiibkiisii Abu Bakr as-Siddiq Allah ka raali noqday maalinkaasna waxa ay ka soo carareen Quraysh dhibkeeda oo ku batay Cabdullaahi ibn Mas'uudna waxa uu noqday cunugii ay carruurta ugu jeclaayeen rasuulka iyo saaxiibkiisa Abu Bakr amaanadiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan darteeda muddo yar kadibna wiilkii wanaagsanaa ee nasiibka badnaayeen Cabdullaahi ibn Mas'uud waxa uu noqday muslim naftiisa u bandhigay nabiga si uu ugu adeego oo ugu ilaaliyana ariga rasuulka sallallahu calayhi wasallamna waa uu ogolaaday waxa uu noqdayna qofkii lixaad ee islaamay oo soo raacayna rasuulka markii uu ogaadayna fircoonka ummadan oo la dhahayna Abi Jahl inuu ibn Mas'uud uu islaamay intuu qabtay ayuu wax uu ku dhahay ma leexatay ari ilaaliyahow kadibna musmaar ay wax uu ka soo baxsadayna jeebkiisa wax uu bilaabay inuu ku kabayna gacanta ibn Mas'uud sidaas ayuu ahayna maalinkii oo dhan ilaa markii dambe la gaarayna habeenkii Abu Bakr as-Siddiq ayaan u imaaday wax uu bilaabay inuu ka baxshana musaamirtii walibana asagoo dhiigiisa ay ku dhamaatayna dhulka Cabdullaahi ibn Mas'uud waxa uu ula socday nabiga sallallahu calayhi wasallam sida qofka uu ula socdo harkiisa meel kasta ayuu u raaci jiray xataa gudaha gurigiisa iyo banaankiisa haddii uu saxda nabiga waa uu ka kicin jiray haddii uu qubaystana dharka ayuu u keeni jiray sidoo kalena kabaha ayuu u gelin jiray markii uu baxaayo waa uuna ka siibi jiray markii xabiibkeena uu soo laabto sidoo kalena waxa uu ahay mid bakooradiisa iyo cadagiisa u qaado waxa uuna gaaray ibn Mas'uud heer uu nabiga sallallahu calayhi wasallam uu ogolaadan inuu qolkiisa uu soo geli karana xilliga uu doono ilaa markii dambe loogu magacaabayna saaxibu sirri rasuulillah waxa uu ibn Mas'uud ku barbaarayna guriga nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu qaatay sifooyinkii iyo caadooyinkii wanaagsanaa ee nabiga ilaa dadka ay ka dhaheen asaga waa qofka ugu dhow rasuulka sallallahu calayhi wasallam muuqaal ahaan iyo khuluq ahaan waxa uu wax ka bartay madrasada rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu dhahay Subayr ibn Awaam maalin ayaa waxa meel ku wada kulmayna saxaabada rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxayna dhaheen wallahi Quraysh ma aysan maqlin quraankan markii yaa waay ninka ku dul aqrin karana Quraysh wuxuu dhahay Cabdullaahi ibn Mas'uud aniga waaye ayakana waxa ay ku dhaheen ayaka ayaa kaaga baqayna inay ku dilaan anagana waxa u baahanahay qof lehna qabiil ka difaaci kara markii ay damcaan inay dilaan asagana waxa uu ku dhahay iyo ogolaada Allah ayaa iga difaaci doonee ibn Mas'uudna waa uu soo baxaya waxa uu dhex iimaanaya madaxweynta Quraysh oo joogayna Kacbada agteeda waxa uu bilaabay inuu quraanka uu kor ugu akhriyana codkiisa aadka u macaan kaas walibana uu jeclayna rasuulka inuu dhageysto والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار quraanka ayuu iska sii akhrinayaa reer Qurayshna waa ay yaaban yihiin waa ayna aamini laayihiin waxa ay indhahooda u jeedaan iyo sidoo kale waxa ay dhagahooda maqlayaan waxayna bilaabeen inay isweydiiyaan waxa uu dhahay wiilkan ee dhashayna adoonta mid ayaa soo baday waxa uu dhahay balaayaha ku dhacday waxa uu akhrinayaa wixii Muhammad uu la imaaday way u imaadeen waxa ayna bilaabeen inay wajigiisa ay ka garaacaan asagoo quraanka akhrinayo ilaa ay ka gaarsiiyeen waxa ay awoodi kareen inay gaarsiiyaan markii saxaabada uu soo laabtay asagoo tacbaan ah waxa ay ku dhahayaan midaan ayaa kaaga asagana waxa uu ugu jawaabaya aniga hadartan gaalada waa igala sii jilacsan yihiin sidii hore xataa hadartan ayaan u laabanaya hadii aad rabtiin saxaabadana waxa ay ugu jawaabayaan xasbuk waad maqashiisay waxa ay dhibsanayeen Cabdullaahi ibn Mas'uud waxa uu ahayna qof caata ah oo gaaban waxa uu lahayna laba lugood oo qaliir ah oo milif ah maalin ayuu ku fuulay geed timireed si uu nabiga ugu soo jarana timir saxaabada nabiga ayaana arkeen waxa ay ku qosleen lugihiisa caatada ah waxa uu dhahay calayhi salaatu wassalaam ma waxa ku qosleysaan lugaha ibn Mas'uud
مسعود وحي alla agtiisa ka culays badan yihiin miisaan ahaan buurta Uhud kaas waa faqiirkii caatada badnaay kaas oo alla ka yeelayna iimaankiisa mid dhab ah kana dhigayna mid kamid ah imaamyada muslimiinta kaas oo loogu tagana hanuunka iyo cilmiga waxa uu helayna nimcada alle taas oo ka dhigtayna inuu kamid noqdana tobankii jannada loogu bishaareeyay ayku adduunka joogaan nabiga calayhi salaatu wasalaamna run buu sheegay markii uu dhahay waxa tahay wiil wax la baray alla ayaana wax baray ilaa uu ka noqdayna caalimkii ummadan iyo tiirkii ay cugsanayeen kuwa quraanka xifdisan oo dhan wuxuu dhahay amiirul muuminiin Umar bin Khattab habeen kamid asagoo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu la sheekaysanayeen saaxiibkiisa Abu Bakar anigana aan ag joogo ayaa nabiga kacay hal mar anagana waracnay waxaan aragnay nin istaagsan masjidka oo dukanayo mana aanan aqoonsanin wajigiisa nabigana waa uu istaagay si uu u dhageysto codkiisa macaan intaas kadibna anaga ayuu noo soo jeestay wax uu nagu dhahay qofkii jecelaystaa inuu quraanka u akhriyo sida uu u soo dagay ha uu akhriyo sida uu u akhrinayeen wiilka ay dhashay adoonta waana Abdullah ibn Mas'ud markii salaada uu ka baxay waxa uu fadhiistay meeshiisa asagoo duceysanayo nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxa uu dhahay weydiiso waa lagu aqbalayaa Umarna waxa uu dhahay waxa nafteeda iska dhahay bari waan u kala hayaa Abdullah ibn Mas'ud si aan ugu sheegana aamintii uu dhahayna nabiga ducadiisa markii aan u tagay oo u bishaaray maagana waxaan ogaaday inuu Abu Bakr Siddiq uu iga soo hormaray aniga uuna u bishaareeyay maya wallahi aniga weligeyga ma awoodin in Abu Bakr ugu hormarana khayr ilaa waxa uu ahayna mid aniga igaga hormara maalin nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu u yeeray Abdullah ibn Mas'ud waxa uu ku dhahay igu akhri adoonkii Allah ibn Mas'udna waxa uu ku dhahay adiga miyaa kugu akhrinaya waliban asagoo kugu soo dagay waxa uu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan jecelahay in aan ka maqlo qof kale waxa uu bilaabay Abdullah inuu ku dul akhriyana suuratu Nisaa ilaa uu ka soo gaaray ka waran hadii aan ummad kasta uu la imaanana marqaati oo aan ku keenana adigana nabiyo si aa kuwan ugu noqotid marqaati maalinkaasna waxa ay jeclaan doonaan kubii gaaloobay oo caasiyeen rasuulka in la sima dhulka kamana qariyana maalinkaas ee bahadal ooyintii ayana ka danbadisay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilintiisa waxa ay ka soo daadatay indhihiisa waxa uu ibn Mas'ud ugu ishaarayna gacantiisa inuu joojiyo waxa uu dhahay ibn Mas'ud